degmada jilib ee gobolka Jubbada Dhexe wararkayna ku helina ayaa ku soo waramaya in dalka Tanzania oo ka barbar dagaalamaya al-Shabaab halkaasi lagu dilay isla mar ahaantaana lagu soo bandhigay meel fagaara ah kadib markii lagu soo eedeeyay u shaqeynaya sirdoonka Mareykanka ninka la toogtay ayaa lagu magacaabaa Ciise James Muweziga waa 72 jir sida wararku ay sheegayaan waxaana sanadkii 2013 uu ku biiray al-Shabaab waxaana ninka la sheegay in maxkamad uu ka hor qirtay in basaasay sirdoonka Mareykanka qaadiga maxkamadda ayaa meel fagaara ah waxa uu ninkani uu sheegay in basaas uu ahaa Mareykanka fagaaraha lagu fulinayo dilka ninkan ajnabiga ah ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmada Jilib iyo deegaanada ku dhow waana markii ugu horeysay al-Shabaab ay meel fagaaraha ku toogtaan nin ajnabi ah oo ay ku eedeeyeen inuu basaasay sirdoonka Mareykanka hase ahaatee waxa horey al-Shabaab dilal kala duwan ay ugu fuliyeen dad ay ku soo eedeeyeen inay basaas u ahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya كوثر علمي هون كابل تي في مقالة المقدشو.